Soo dhawaada, aniga magacaygu waa Zeynab. Waxa aan jiraa 18 sano. Waxaan la noolahay hooyaday iyo aabahay. Hooyaday iyo aabahay keligay ayay aniga i haystaan. Waxaa nala nool ayeeyday aniga. Ayeeyday waxa ay ahayd mid aad u xanaaqsan mar walba, mana ahayn mid farxi jirtay. Waxa ayna qabtay cudurka hilmaanshaha. Xataa ma xasuusato waxa ay xalay ku cashaysay. Maalin maalmaha ka mid ah, hooyaday oo dhaqayso khasaalada dhar ku dhaqayso ayaa ayeeye ay ka soo baxday guriga. Waxa ay soo aaday dhanka khasaalada agteeda. Waxa ay bilowday in ay furfurto khasaalada. Kadib waxa ay taabatay fiilo ku dhaganeyd. Waxaa qabsadatay korontadii isla markiiba. Waxa ay bilowday in ay qayliso. Kadib hooyaday oo jikada ku jirta ayaa waxa ay maqashay qaylideeda. Waxayna u soo carartay dhankeeda. Markii ay aragtay hooyaday ayaa ayadana waxay ku dartay qayli kale. Mayna ogeyn waxay samaysay. Waxay bilowday inay guriga dhexdiisa ku ororado. Ilaa ay cabaar aysan intaas ka ahayd ayaa ayeeyday dhulka ku dhacday ayadoo gubatay oona dhimatay. Kadib hooyaday intay ishayn weysay ayaa ay dhulka ku suuxday. Waxaan ka soo baxay iskuulka waxaana ay sugayay aabahay. Markii aan gaariga soo fuulnay ayaa waxaan bilownay in aan sheekaysano annagoo aad u qosleyno oo faraxsan. Kadib markii aan guriga soo gaarnay oo guriga furnay ayaa waxaan aragnay dhulka hooyaday oo taallo. Waan ku soo ordnay kadib waxaan isku daynay in aan kicinno. Markaan cabaar kor taagneyd ayay soo kacday. Waxa ay bilowday inay ku hadasho hadal aan la fahmi karin. Waxa ayna bilowday inay gacanteeda noogu fiiqdo meesha ay taallay ayeeyday. Kadib markii aan aragnay dhankii ay noo tilmaamayso ayaan soo aadnay. Waxaana aragnay ayeeyday oo dhulka taallo oo ku dhagtay koronto. Kadib waxaan ku soo cararnay ayada. Waxaan u sameynay ayeeyday janaaso. Kadib dadka marka ay baxaan hooyaday waxa ay ahayd mid iska oysa mar walba. Waxaan u kaxeynay isbitaalka. Wuxuuna aabahay u sharaxay hooyaday waxa hayo. Wuxuuna ku dhahay markii hooyadeed ay weysay kadib codka ayaa ku xirmay mana la aqaano waxa ku dhacay. Dhakhtarku waxa uu dhahay waxa ay qaaday shoog. Waa in aad ka ilaalisaan dhibaatada, farxad gelisaan oona u kaxaysaan meel walba oo dalxiis ah si ay uga baxdo shoogeeda. Codkeedana waqti badan kadib wuu imaan doonaa. Kadib dhakhtarka ayaan ka soo baxnay anagoo ku qanacsan hadalkiisa. Markii guriga aan imaanay hooyaday maynay hadli jirin. Waxaa mar walba ka hor imaan jiray hooyadeed oo u soo muuqan jiray. Kadib dhulka ayay ku dhici jirtay wayna suuxi jirtay mar walba. Kadib waxaan bilaabay inaan hooyaday waaniyo. Waxaan ku dhahay hooyo waxaas ma jiraan waa khuraafaad ha aaminin. Waxaad tahay qof wax bartay eh. Kadib waxaan u keenay sheekh si uu ayada u quraan saaro. Sheekhu waa uu anfacay quraan saarkiisa waayo cabaar ayay ka hareen wixii daba socday. Laakiin wixii ay ku soo noqdeen markuu cabaar ka maqnaa sheekha. Waxa ay bilowday habeenkii in ay qayliso. Markii la waagi baryay dhakhtarka aabahay waxa uu ku celiyay hooyaday. Kadib dhakhtarku waxa uu dhahay waa inaan la fadhiistaa kadib aan wareystaa. Markii uu wareystay kadib ayaa dhakhtarku waxa uu u imaaday aabahay. Waxa uuna ku dhahay waxa isku eedeynaysaa in ay hooyadeed ayada dishay. Waxa ayna dhahday haddaan ka saari lahaa korontada waa xilligan way ii noolaan lahayd hooyaday. Waxaad isku daydaa inaad gurigaad ka bedeshaan waayo markii guriga sii aragta ay shoogga sii qaadaysaa. Dhakhtarka hooyaday intaas ayuu kula taliyay. Waxa uuna dhahay talooyin kale oo badan ayuu soo siiyay si ay hooyaday caafimaadkeeda la xiriira. Aabahay isla markiiba waxa uu sameeyay dhakhtarku waxa uu ku dhahay waxa uuna noo raadiyay guri. Guriga markuu noo soo helay ayaa isla markiiba waxaan bilownay inaan u guurno guriga kale. Hooyadayna sideeda ayay u aamusneyd. Waxaan bilownay inaan diyaarino guriga aan degi lahayn oo ka qaadno qashinkii. Kadib markaan guriga soo degnay ayaan habeen jiiftay. Waxaan ku soo kacay nuur qolkayga ka soo dhex baxayo. Waan soo istaagay anigoo baqayo waxaana isku dayay inaan arko iftiinka halkuu ka imaanayo. Waan soo socday ilaa aan ka arkay albaab yar oo qolkayga geeskiisa ku yaallo. Albaabkii ayaan furay mise waxaaba dhex yaallo qol kale oo qolkayga ku ag dhagan. Markii aan soo dhex galay ayaa waxaan ku soo dhex socday cabaar. Intii aan soo socday aad ayaan u baqaayay. Kadib waxaan arkay sanduuq ifaayo oo dhex yaallo. Waxaan is dhahay wixii maanta dhan ifaayo ma sanduuqa yar ayuu ahaa. Talow maxaa ku dhex jira gudihiisa. Kadib waxaan is dhahay bal sanduuqa aad furtid saad u hubsatid. Kadib sanduuqa ayaan furay. Waxaana arkay warqad meesha ku dhex taallay. Warqaddii markii aan ka soo baxsaday ayaa hooyaday ii imaaday. Sanduuqa meeshiisa ayaan ku celiyay waxayna ii ishaartay inaan soo raaco si aan u soo casheyno. Waan soo baxay markii aan imaaday miiska cashada ayaan waxaan arkay aabahay oo nagu sugaayo. Kadib hooyaday ma hadli karin aniga aad ayaan u murugeysnaa. Markii aan fiiriyo hooyaday ayaa waxaan ka murugeysnaa sida ay noola hadli karin anaga. Aad ayaana u murugoonayay. Kadib markii weelasha aan dhaqay habeenkii oo qof walba uu seexday ayaa subaxdii waxaan ogaaday inay hooyaday hurdadeeda ku noqotay. Aabahayna uu aaday shaqadiisii. Waxaan is dhahay u laabo meeshaada oo soo arag sanduuqa waxa ku dhex jiro. Kadib ayaan soo baxay waxaana furay warqaddii sanduuqa dhex taallay.
warqaddii marka aan furay ayaan arkay waxaana ku qornaa qoraallo aad u fiican. Waxaan isku dayay inaan aqriyo, kadib waxaa ku qornaa warqadda inaad haddaad rabtid hooyada ay hadasho waa inaad shumac shidaa, aad ku ag shidaa sanduuqa agtiisa, aadna niyotaa waxa aad rabto hadday hooyada fiicnaanayso. Kadib waxaan dhahay waxaan amay sixir yihiin talow. Haddana waxaan dhahay anigu ma sameynayo wax shirki ah, waxna ma qali doono, laakiin waxaan isku dayayaa inay hooyada ii kacdo ayaa laga yaabaa. Kadib waxaan soo qaatay shamac, jikada ayaan aaday, waxaana ka soo qaaday shumacii. Waxaan soo qaaday shumacii iyo taraqii. Kadib waan daaray, waxaana istaagay qolka bartankiisa. Waxaana dhahay waxaan rajaynayaa inay hooyadii fiicnaato. Kadib waxba ma dhicin, cabaar ayaan sugayay aniga. Sidaan u sugayay markii meesha aan ku daalay ayaa waxaa dhacday inay hal mar dabeyl soo baxdo, kadib ay damiso coodkii meesha shumaca ku sidnaa. Waan yaabay, waxaan is dhahay daaqadna kuma taalo qolkaas suu ku dami karaa. Mar labaad ayaan shiday, waxaana bilaabay inaan dhaho waxaan rajaynayaa inay hooyadii fiicnaato. Kadib waxaan soo aaday hooyadii dhankeeda anigoo aad u ordaayo. Markii aan u imaaday ayaan kiciyey, waxaana ku dhahay hooyo magacayga sheeg waa ku baryayaa, waxaad dhahdaa Zeynab. Hooyadii waa isku dayday waa ayna dhihi weysay. Waxa ay bilowday inay afka dhaqdhaqaajiso, wax cod ah kama soo bixin. Waxaan ku soo laabtay anigoo meeshoodii fikiraayo. Kadib intaanan kasoo ag tagin ayaa waxaan bilaabay inaan dhaho waxay ahaayeen been. Hooyadii waa ay fahmi weysay waxaan dhahayo, balse waa ay ila hadli weysay. Kadib ayaa markii dambe waxaan ugu soo gargaraacay albaabka. Markii hooyadii ay soo baxday ayaa aan ka furnay. Kadib waxauna dhahay gurigaan ma guriga Saciid ah? Waxaan ku dhahnay haa. Waxa uuna dhahay ninkii gurigaa iska lahaa waxaa ku dhacay shir gaariyeed, waxaana loo qaaday isbitaalka. Hooyadii waxa ay bilowday inay qayliso oo oydo. Kadib wuxuu dhahay waxaan gaarsiin karaa meesha isbitaalka ah, waayo waxaan wataa gaari. Waxaan soo raacnay asaga gaarigiisa. Kadib isla markiiba waxaan imaanay isbitaalka. Markaan aabbahay u imaanay ayaa waxa uu indhahaas aad u kala qaaday, ma uuna hadlaynin. Siduu cabaar saas u ahaa ayuu hal mar dhintay. Kadib hooyadii ayaa qaylisay, waxay dhahday Saciid ha naga tagin oo ha dhimanin. Aniga aad ayaan u yaabay, ma waxaan ku farxaa hooyadii codkeeda oo u soo noqday, mise aabbahay dhimashadiisa ayaan ka naxaa. Kadib waxaan anaga oynayba waxaa dhacay janaazadii. Markaan janaazadiisa u dhignay ayaa waxaan ku soo noqonay gurigeena anagoo aad u murugsan. Hooyadeena aad ayay ooga sii dartay. Waxaan soo xasuustay sanduuqii. Kadib markii aan soo aaday oo furay ayaa waxaan arkay warqad sanduuqa ku qoran. Kadib qoraalku wuu isbedelay, waxaana ku qornaa waxaad heshay codka hooyada, balse waxaad weysay aabbaha, wuxuuna ahaa kaas wixii aad aabbaha ku weyn lahayd. Waayo hooyada codkeeda haddaad hesho aabbaha ayaa beddelkeeda u baxayo. Aad ayaan anigu u ooyay, waxaana xasuustay inaan sameeyay wax qalad ah. Sheekadeeda halkaas ayay ku dhamaatay. Waxaan idinkaga digayaa inaad sixirka kaashataan, waayo sixirku waa gaalnimo. Fadlan hanagu iloobin subscribe-ta.